توبيغا سيميناركا عاوة وشافعي روراي أو قادم دونا سامين تنيرد كل هذا هاي حكير لماذا صورة ومدنة وحنا كعصنية وقتي أنا ولا نسي وحيد دم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرتنا وأنا كلمة عليا جانس كأدمانتي سيسن أرضيدا حيث لورنسي وقبل يصير برنامج كان كل حيث بدن كوس حبسن سيدي وحلوجا بدري لها فكر كخلدان لجأ من سيهاي نالي يراد الصومالي وحلقة من سيهاي خرط وحارب إن لو بدلوا ونا أريتاسنا وحيو بها تجدال فربضن إلا قبته وحنا رأينا أمهد عليه مركز كواد ماموركا يوم دخل أرضية جامعة سيتي لورنسي أو حقيقي حلوين إسكساري قدرش هذا البرنامج كان يسيدو سيدا قرب بدلنا لأوجينا وجيه الكلام وحنا رأى برنامج كان يقبض ديسو وبرنامج آد حساب بدن وأندريمينا وحنا رأينا أمهد عليه علماء صوماليين شيخ وينا وعدي ما شاء الله آد وكعي قيرة ضدك سوجيري إيو ماملك هيئة الأهلي إيو دمان مدخل الجامعة لها كلا كسوته waxaan ku qoranahay barnaamij effects of terrorist group on Somali youth generation qodobkaas waa qodob aad u xasaasi ah waa saameynta ay kooxaha argagixisada ay ku leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed markii la yiraahdo saameynta ay ku leeyihiin marka waa wada dareemeynaa inteena badan waana arrin aad macnihi saameyn weyn ugu wada yeelatay intaan u gelin qodobkaas waxaan rabaa inaan isla qeexno horta barnaamijku maadaama uu yahay إن لبدلوا فكر كخلدان اللي جاه يصير دليرة وهربنا أن نسلف هم نوام حياة دليرة and English وحيكون كحن youth is a time of life when one person is a young and often means time between childhood and adulthood معنيه دليرة وحل كامل أن الله شقف كبني آدم كسمرته تصاع وقتك أود حياة عرفني ماذا يوقع جرني ماذا سيدو كلا سمارها وحير هذا دليرو وقرب يوقعشان وهنتيدا وليه دل كسر والدنيا ذا كميرة مدة وقع نسي أنت سوى definition كدليرو وحنا ربنا كودرو ومحي أرجعيس هذا يعني هو أهين وبدن رجع هدتك أدوك ما تكونوا دين والله هيستاني كسيئين لكن دواتا أبو بدن كو هيسا تدك مسلمين تا أرجعيسو وكوح ضده أو سماية فعله أن لدي كو أهجريتان كان نلش آدميك إيا حقوق ذا هيس الشرع حنتدا إيا كو حد جذبك مدح بناني ذا شخصية وضد إسكتجي أو قبته شقاء إن أي معنيه كو حد جذبان جريتان ك نلش قفك بني آدم ك حنتدا نلش قفك إيو معنيه مدح بناني ديس سيدو كله waxaan rabaa inaan ku daro qodob kale oo ah waa maxay xiriirka ka dhaxeeya dhalinyaro iyo argagixis inta badan waa la isla xiriiriyaa labadaas arrimood ma garanayo sababta keentay xaqiiqdii waana arrin jirta oo example macnihi muuqda leh in badan oo dhalinyaradana ka mid waxaa dhici karta kambaar inay kala kulmeen in la weydiiyo su'aalo la xiriira argagixisada ama loogu yeeray mararka qaar magacyo khaldan sida magaca al-shabaab iyo magacyo la mid marka waa maxay horta maxaan haddaan nahay dhalinyaro naloola xiriiriyaa argagixisada maxay tahay sababta arrintaasi baaristeeda waxaan ku soo helay in ay yihiin dhalinyaradu hantida ugu muhiimsan ee ay haystaan ama ay adeegsadaan kooxaha argagixisada maadaama ay isticmaalaan kooxaha argagixisada ahi fikir khaldan macnihii loo ekaysiinayo diintii islaamka waxay isku dayaan in ay helaan qof aan ra'yi fiican ka haysan diinta islaamka inta badanna dadku markay noloshooda koraan waxay helaan cilmi marka dhalinyarada da'dooda ku jira teenage-ka aan iraahdo macnihii 19 ilaa 13 inta u dhaxaysa bay inta badan waxay isku dayaan inay ra'yigaas ku abuuraan si ay ugu isticmaalaan ficiladoodii ahayd argagaxgelinta marka arrintaasi qof walba waa arrin u muuqata waana saameyn rasmi ah ee ay nagu leeyihiin kooxahaasi waxaan rabaa sidoo kale inaan
qeexo magac in badan dhagaheena ku badan haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed magacaas oo ah al-shabaab what mean for al-shabaab inaan fahamno waa arrin muhiim ah kalimadan asaliyan waxay ka timid carabi waa kalimad carabi ah waxaana loo isticmaalaa waa tilmaam astaan lagu garto dadka da'doodu ka yar tahay 35 sano dhalinyaro marka la yiraahdo waa tilmaam astaanta lagu garanayo dadka da'doodu ka yar tahay 35 sano dhalinyaro sida saxda ah oo loogu talagalay waa sidaas waxa soo dhaca magaca dhalinyaro waxa sidoo kale lagu gartaa koox ka mid ah kooxaha wax argagixiya oo ka jira bariga Afrika gaar ahaan Soomaaliya وانا أرين عجائب كذا له أو مغضة مركب وحكى لنا السؤال محاك وحبا كوكلفة إني لبحان مقعد الليرو وأرين أو بحنا إن فهمنا دان هاد الليرو الصومالي أوركان أرجع سيدا كجر الصومالية وحين نقولن أوركا أقول ببعتين تبادن لليرو دا يعرف تأدم وأرجع ورد لم يتكع سيدا ورد كلا أرجع سيدا كمديين القاعدة ورد كلاته فرصة مثلا إن سيدا الشباب أي استعمالين باليرة أي استعمالين وهل هذا ذلك قلب كاني وسببها أي ولد حين مجع الشباب سيدو كله ذلك أبو بدن أي عسكريان وعهورته يأرضي الدأدو ذكها سيصل لبعض السنة وأنا قلب كله ولده كروا صوت أي وقعتين مجعان سيدو كله جريتانك وجومهم سن أي كوحهن هيل كران أما أي هيستان بق ودليرة oo ay ku abuuran afkaartooda qalafsan arintaasi waa arrin waadax qof walba u fahmi karo sidoo kale waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatada dhalinyarada ka haysa kooxaha argagixisada aad u badan tahay haddii la yiraahdo dhibaatada waxaa ka mid ah bartilmaameedsiga dhalinyarada dalka gudihiisa waxaa ka mid ah dalkeenii oo aan ku noolaan weyn waxaa ka mid ah iska horkeenista dhalinyarada iyo bulshada caalamka waxaa ka mid ah tashkiilinta dhalinyarada waxaa ka mid ah ka dhigista dhalinyarada dad dambiye galay macni qofkii dhalinyarada markii loo isticmaalo arrinta argagixinta wuxuu noqonayaa qof galay dambiyo waxa kamid ah luminta mustaqbalka dhalinyarada hadduu ku biiro kooxahani mustaqbalkiisa meeshaas ayuu ku soo gabagabeeyay sidoo kale dhibaatada dhalinyarada ka haysta kooxaha argagixisada waxa kamid ah gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdho muslimiin oo inta badan xijaabta waxay keentay maadaama kooxdani ay magac muslim sheeganayso ay isticmaalaan xijaabkii in gabdhihii lagu eedeeyo markii lagu arko ayada xijaab dhacdo ka dhacday Kenya gabar soo gashay goob ganacsi ba waxa lagu yiri markan arkay dharka aad wadatid waan jiray rocad macnaheedu kaaga naxay inaad isqarxin kartid rabtid oo kale marka waxa shicaarka diinta islaamka waxa loo isticmaalaa hab khaldan oo foolxuma sidoo kale dhalinyaradii ku biirtay inta badan waxay noqdeen caasi waalidiin dhalinyaro waalidkeeda ku caasay annaga oo diinta islaamka qadarinta waalidka heerka ay ka joogto oo ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ku xiray macni ilaahay hadii aad rabto inaad caabudo inaad waalidkaagana xushmaysan sidoo kale dhibaatada ay ku hayaan waxa kamid ah fahamka diinta laga haysto oo ay inta badan ka khaldaan dhalinyarada waxaan rabaa marka maxaa xal ah waxyaabahaas dhan wada arkayna aadaan soo koobiya waxaa rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay ku dhiiradaan in ay waxyaabaha ay arkayaan ay u gudbiyaan cidda ay qosayso haddaad la kulanto dhacdo dadkaas la xiriirta waa inaad ku dhiiran kartaa in aad u gudbiso ciddii wax ka qaban karta haddii aad uga baqayso in ay ama ku dilaan ama ay ku daayaan haddaba waxaad ogataa haddaadan sheegin xataa way ku dilayaan way caddaha arrintaas sidoo kale waxaa loo baahan yahay wacyigelin joogto ah oo ay dhalinyaradu samaynayso iyo culimada oo laga rabo in ay fahamsiiyaan diinta islaamka sida saxda ah ee ay u tahay maadaama kooxdan ay isku dayayso inay fikir khaldan isticmaasho isku xirka bulshadu inay midda kale ku xiran tahay meel kasta ay joogto Uganda waa inaan ku xirnaanaa bulshada Uganda ee nala degan iyo inaan ka bari noqono kooxdan oo hadda magaca loo bixiyay uu noqday ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed ee August وما سنتين وحن كسو جبجبيريا دالين يرى أردن معها شباب وأرنعت شباب أردن مسلم معها مسلم أردن أرجع حسن معها وبلا توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كومنت يسأل وسؤال وين عدد خطة وما سنتين أدبو محسية هاي والكن وحن مرة بعد يمرسد حد يحسسنا تيم كونو يريهاي